markaad u diyaar garoobayso interview ama waraysi gaar ahaan xagga socdaalka waa muhiim inaad ka fogaato wax walba oo muujinaya inaad tahay qof ladan iyadoo la tixgelinayo aragtida iyo su'aalaha ka iman kara sarkaalka waraysiga ka qaadaya. Wasaacid Xaaji Aadan, soo dhawaada mar kale. Markaad u diyaar garoobayso waraysi waa muhiim in muuqaalkaaga iyo waxyaabaha aad xiranayso aysan muujin inaad tahay qof nolol wanaagsan ku nool. Sababta ugu weynna waa in qof qaxooti ah oo sheeganaya inuu dhibaatooyin kala kulmay dalkiisa ama deegaankii uu ka yimid islamarkaana uusan haysan badbaado, xorriyad ama guud ahaan asaasiyaadka nolosha. Haddaba haddii muuqaalkaagu muujinayo qof nolol ahaan ladan, waxaa laga yaabaa in waraysigaaga su'aalo adag lagugu weydiiyo ama shaki badan laga muujiyo sheekadaada. Tusaale, qof wata dhar, telefoon, saacad, kabo qiimo ahaan qaali ah ama dahab waxa uu u muuqan karaa ama loo qaadan karaa qof ka been sheegaya duruufaha nololeed ee qisadiisa ku xusan, waxayna khatar ku keeni kartaa codsigaaga qaxootinimo. Gaar ahaan haddii aad sheeganayso dhibaato dhaqaale ama cadaadis dhanka nolosha ah, waxaa laga yaabaa in sarkaalka waraysiga qaadaya uu isweydiiyo sideebuu qof qaxooti ah oo dhibaataysan uu u haysan karaa agab qiimo ahaan qaali ah. Su'aalahan waxay dhaawici karaan kalsoonida lagu qabo hadalkaaga. Waxaa kaloo xusid mudan in hadalkaagu noqdo mid degan, protocol ahaanna saxan, kana turjumaya in aad tahay qof ay soo martay dhibaato nololeed. Waxaa kaloo muhiim ah inaadan muujinin kalsooni badan oo dhanka nolosha ah ama wax loo arki karo in aysan wax dhib ah ku haysan. Sidoo kale ka taxadar in aad tiraahdo ganacsi ayaan leeyahay ama shaqo joogto ah oo aan ku qanacsanahay ayaan haystaa. Dhanka dumarka, xijaabku waa labis astaan u ah qofka xishoodkiisa iyo sharafkiisa, waana doorasho ku salaysan dhaqanka suuban ee Soomaaliyeed iyo mabaadi'da Islaamka. Asturnaanta iyo ixtiraamku waa quruxda dhabta ah ee haweeneyda. Sidaas darteed waa muhiim inaad ka fogaato muuqaal ama labis xad dhaaf ah oo dhalin kara in lagaa shakiyo. Waxaa kaloo muhiim ah inaad maskaxda ku hayso in qofka qaxootiga ah lagu qiimeeyo sida uu ugu faano dhaqankiisa iyo diintiisa, uguna adag yahay ilaalintooda, taasoo muujinaysa kalsoonidiisa naf ahaaneed iyo asal ahaan waxa uu aaminsan yahay. Wargelin muhiim ah. Xafiisyada Saacid Agency waxay kaa caawinayaan guud ahaan adeegyada kale ah diyaarinta kaysaska iyadoo la raacayo shuruudaha rasmiga ah, sixidda kaysaska khaldamay ama diidmo hore la kulmay, turjumaadda dukumentiyada iyo kaysaska si sax ah luqadaada hooyo, qabashada ballamaha faraha biometric appointment, ka jawaabidda interviewga, soo saaridda iyo buuxinta codsiyada viisaha, ka jawaabidda iimaylada kala duwan, iyo talo bixinta arrimaha la xiriira interviewga iyo socdaalka. Haddaba, si aad u hesho adeeg hufan oo degdeg ah, fadlan horay u gaar xafiisyadeenna ama kala xiriir lambarada shaashada kaaga muuqda. Dhanka kale, inta lagu guda jiro interviewga, waxaa lagu weydiin doonaa su'aalo muhiim ah oo ku saabsan noloshaadii hore, sababta aad u soo qaxday, iyo wixii dhibaato ah ee aad la kulantay. Mararka qaar, sarkaalku wuxuu ku weydiin karaa su'aal adag oo aad moodo in ay dheer tahay qaabka loo dhigay awgeed, su'aal aan caddayn ama laga yaabo inuu humaag kaa galo. Haddii aad fahmi weydo su'aasha, waa muhiim in aad codsato in lagugu celiyo su'aasha. Tani maahan ceeb, mana ahan cillad, laakiin waa astaan muujinaysa mas'uuliyad iyo doonistaada ah in aad si sax ah uga jawaabto su'aalaha. Sidoo kale, haddii su'aashu dheer tahay oo dhowr su'aalood ka kooban tahay, waa muhiim in aad codsato in lagu kala dhigdhigo ama lagu kala qaado. Tusaale, goorma ayuu falku dhacay? Yaa falka geystay? Maxaad samaysay falka kadib maxaa dhacay? Sidee dareentay falka kadib? Haddii aad dareento in ay su'aaluhu kugu badan yihiin, waxaad si protocol leh u dhihi kartaa, su'aashu waxay u muuqataa mid ka kooban dhowr qaybood. Fadlan ma ii kala dhigdhigi kartaa? Ama fadlan mid iigu sheeg su'aalaha si aan si wanaagsan uga jawaabo. Waraysiga ama interviewgu waa fursad muhiim ah oo aad ku soo bandhigayso xaaladaada dhabta ah, waxaana lagama maarmaan ah inaad u diyaar garowdo weliba si xigmadaysan. Labiskaaga, hadalkaaga iyo dhammaan habdhaqankaagu waa in ay muujiyaan qof ay xaaladdu dhab ka tahay. Haddiina aad su'aal fahmi weydo, ha ka xishoon in aad codsato in lagugu celiyo ama lagu kala dhigdhigo. Tani waa xuquuq aad leedahay. Iskana ilaali wax walba oo tilmaamaya nolol raaxa leh ama ladnaan si aad u ilaaliso kalsoonida sheekadaada lagu qabi karo. Fadlan, haddii aad nala soo gaartay dhammaadka muuqaalkan, waxaan naga xasuusinayaa inaad muuqaalka like garayso, saaxiibadaada la wadaagto si uu meelo fog u gaaro dadkuna uga faa'iidaystaan. Wixii talo ama tusaale ah, waxaad noogu reebi kartaa qaybta commentiska. Hana hilmaamin inaad subscribe tiraahdo si xoogaha aan channelkan ku soo gudbinno aysan marna kuu dhaafin. Intaan talooyinkan kuwa lamida ku kulmi doono, nabadgelyo.